walba caanaha waxba lagu yaqaanay farisiintu way caan ku hayeen ku dagaalanka maroodiga Romaaniintuna waxa looga dambeeyay siyaasadda iyo kala dambeynta halka ku dagaalanka farduhuna lagu xasuusto Mongooliyiinta laakiin su'aasha ay daawada waxay tahay Soomaalidu maxay caan ku ahaayeen marka taariikhaha Afrika la baarayo taariikhda ugu yaabka badan ayaa waxay tahay midda dadka Soomaalida taasoo dadku badanana aysan aqoon laakiin ujeedka fiidiyoga ayaa wuxuu yahay inaan ku soo bandhigo taariikhdii ugu yaabka badnaa ee Soomaalida ee dadku badan aysan aqoon sida marka ay Soomaalidu ka badbaadiyeen in Mongooliyiintu gacantooda ay gasho qaaradda Afrika iyo Soomaalida oo ahay dadkii ugu horeeyay ee wax u kala gooshiya qaaradda Asia iyo qaaradda Yurub iyo baahi keenay ganacsiga Soomaalida inuu aad u weynaado heer ay xitaa wadamada China, Japan iyo Korea ay baraan una dhoofiyaan gariga daawada fiidiyowadaas oo dhan halkaan ayaa ku soo bandhigayaa si daawo kuna raaxayso like tana saar subscribe kana ha iloobin daawada Soomaalida ayaa kaalinta koobaad uga jira taariikhda Afrika sida markii ay Asiya Xasan ku gashay taariikhda weyneedii ugu horeysay oo Afrikaana noqota pilot taasoo wadamo badan u noqotay wada ku dayasho mudan sanado yar kadibna Cabdibila ayaa wuxuu dhigay taariikhdiisii cajiibka ahayd inuu ku guuleysto orodka caalamka arin hadde aad loo hadalhay oo aad moodid daawada inay kaga daydeen xagga geesinimada madaxweynihii wadanka Maxamed Siyaad Barre oo markaas xurguf ay ka dhaxaysay asaga iyo midowga Soofi oo Afrikada kale ay ka gilgili jireen ay loo arkeen duufaan aan loo istaagi karin balse daawada waxa la iloobi karin dhacdadii General Aidid iyo ciidankii yaraa uu watay markii ay xasuuq baan u geysteen kolonyadii Mareykanka arrinkaas oo sababay in Mareykanku ay filan ka sameeyaan taawishtu hogaaminayay sayidkuna ay taariikhda ku galeen gobonnimo oo dirarkii ugu horeeyay ee abadan ee diyaarad lagu weeraray ciidankii ugu horeeyay oo cadaan ahaa European ahaa iyo qaaradda Afrika looga adkaadayna waxa uga adkaaday Axmed Gurey balse taariikho waxaa jira Soomaalida iska warqabay sida inay Soomaalidu ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee geela dhaqda 4500 sano ka hor waxa kaloo la isku waafaqay Soomaalida inay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee doomaha badda u isticmaala ayagoo la sheegan inay wadan jireen doomo aad u dheereeyo laakiin daawada maxay ahayd saameyntii ugu weyneed ee Soomaalida abadan ay suubiyaan oo sababtay in boqortooyooyinka caalamka waagaas jiray ay u bixiyaan magacyada kala ah dhulkii ilaahiyada dhulkii udgoonaa iyo dhulkii gariga Soomaalida ayaa ahaa dad aad iyo aad ay boqortooyooyinka caalamka u qadariyaan maadaama ay fahansanayeen sirta isku xirta ganacsiga u dhaxeeya Yurub iyo Asia daawada dabcan taariikhda waxa macquul galay inaad hore u maqal laakiin aniga ayaa goordhow ku sharaxay doon si daawo ka hor intaan loo qodin marinka Suez 1859 ee ku yaal wadanka Masar iskuna xira badweynta Mediterranean Sea iyo badda Cas waxa aad iyo aad u adkaa inuu ganacsi dhex maro dadka ku dhaqan boqortooyada Rome iyo dadka ku dhaqan Asia maadaama ay xurguf baan u dhaxaysay boqortooyada Farisiinta iyo boqortooyada Rome taasoo agabyada kala duwan ee waa imaanayay Asia badana la dhici karay maadaama ay soo dhex marayaan dhulka ay ka taliyaan Farisiinta halka haddii ay damci lahaayeen inay doomo ku soo daabulaan agabka ay waqti badan ku qaadanayso maadaama ay doomo wareeg dheer soo galayaan taasoo ah khasaare maal iyo waqtiba leh arrinkaasoo madaxooda gilgila ayaa fursad weyn u noqday Soomaalida inay ka dhex macaashaan ganacsiga u dhaxeeya Yurub iyo Asia ayagoo qiimo aad u jaban uga soo qaadan jiray agabyada kala duwan Asia kana siin jiray Yurub qiimo macaash leh halka haddana isla Asia-daas ay wax ka soo qaadi jireen waxay u dhoofin jireen luubaanta iyo duurjoogta kala duwan sida dameer farowga baciidka iyo gariga arrinkaasoo daawada adiga naftirkaaba aad baari kartid sababtoo ah wadamada China, Korea iyo Japan ilaa ya hadda gariga waxay ugu dhawaaqaan ereyga Soomaaliga ahaa halka gari uu ka ahaa waxay ugu dhawaaqaan gerin
dhaqaalahaas faraha badan oo ay Soomaalidu gacanta ku dhigayeen ayaa waxay Soomaalidu ka dhigtay quwaddii ugu dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda fiicneed Afrika, arrin xitaa sababay kaniisadda weyneed ee Katoliga ku taallay boqortooyada Rome inay si toos ula baayactamaan Soomaalida, ayagoo ka naawilaya lubaanta in si joogto ah ay Soomaalidu ugu soo dhiibaan. arrin hadda boqortooyinka caalamku ay soo dhaweeyeen, laakiin boqortooyadii Ardul Xabash ku ahayd inuu waaga ku bariyay, maadaama ay in iyo dagaalo badan dhex taalla ayaga iyo Soomaalida, ayay waxay had iyo goorba ay ka baqi jireen dhaqaalahaas faraha badan inuu sababo in ay cirib dirmaan. laakiin daawada guulahaas faraha badan oo Soomaalidu ay gaareen waxaysan qorshahooda ku darsan in agtooda ay ka dhalanaysay quwaddii kala wareegi lahayd saldanada. qarnigii 10aad waxaa xeebta Soomaaliya ka soo degay wiil yar oo baxsada, kaasoo wejigiisu ay ka muuqatay cara iyo ciil badan. wiilkaasi wuxuu ahaa Cali ibn al-Xasan Shiraasi oo uu dhalay hogaamiye Farisi ahaa. kadib geeridii aabihii waxay dafireen dhaxalkiisii, waxayna u maleeyeen shirqool walaaladii oo ahaa bah kale. Cali oo fakad ahaa ayaa wuxuu rabay inuu bedelo noloshiisa si uu uga cadgoosto walaaladii, hase yeeshee duruufihii uu wajahayay ayaa aad u adkaa. laakiin imaanshihii ku yimid Soomaaliya ayaa waxa gacantiisa soo gashay fursaddii ugu qaalisanayd uu hadafkiisa ku gaari lahaa, ahaydna inuu ka barto Soomaalida ganacsiga iyo siriha ay uga macaashayeen caalamka kale. Cali ayaa isla markiiba wuxuu bilaabay inuu qaadim u noqdo ganacsatada Soomaaliga ahayd, asagoo ujeedkiisu ahaydna inuu ka barto siraha ganacsiga. kadib siniyadii markuu sanado badan ula shaqaynayay ayaa Cali laftirkiisa ayaa wuxuu noqday ganacsade weyn oo laga dambeeyay. laakiin muddo yar kadib waxa ismaan dhaafeen ganacsatadii kale oo Soomaalida ahayd, arrin sababa inay u showraan iskuna waafaqaan inay ka tarxiyaan Cali ibn Xasan wadanka Soomaaliya una tarxiyaan xaggaas iyo Tansaaniya, arrin ay Soomaalidu ka qoomamayn doonaan. qodayna taladii ugu xumaa ay isku waafaqaan abadan. Cali oo noloshiisu ay xasilooni beeshay kadib markii ay Soomaalidu tarxiileen ayaa markaan sitay lacag fara badan, taasoo isla markiiba uu ku dhaqaaqay inuu indheeyo qaabihii Tansaaniyaanku ay u dhaqmayeen iyo fursadihii ganacsiyadeed oo uu kaga liibaani karay. markii uu muddo badan baarayay ayuu wuxuu xaqiiqsaday in shacabku ay kala qaybsanaayeen, laakiinse xeebaha ay haysteen ay ahaayeen xeebo istiraatiiji ah. taasaana waxay Cali ku dhalisay in uu hamigiisa uu ka buuxsado inuu asaasi karo saldanad hor leh, taasoo dabadeedna uu ku dhaqaaqay inuu shacabka shukaamiyo, asagoona u ballanqaadyo maal iyo maamuusba leh. taasoona sanadii markay ahayd 957 u suurta gashay inuu aaso saldanadii Kilwe, arrin haddee uu Cali aad ugu riyaaqay. Cali oo aanan iloobin xarashkii oo Soomaalidu u hayay, gacantana ku dhigay xeebahan istiraatiijiga leh, yaqaana sirihii ay Soomaalidu uga macaashayeen ganacsiga, ayuu wuxuu isla markiiba u howlgalay inuu kala wareego ganacsigii ay Soomaalidu ka faa'iidayeen Yurub iyo Asia. arrinkaasoo muddo yar kadibna u hirgalay maadaama aabihiis uu ahaa amiir weyn oo ay Asiaanku aysayn jireen. arrin hadda Soomaalidu ku noqday luqungoyn, sababtoo ah Soomaalida ganacsigooda keliya faraha kama bixin, waxaa argagax ku ahayd awooddan cusub ee agtooda ka dhalanaysay, ayna ku qasbanayeen inay goobaan xal degdega maadaama ay halis ahayd inay si xulafo leh ula heshiiyaan Xabashida oo ahaa cadowga Soomaalida, arrin khatar ku noqonaya sii jireenka Soomaalida. Soomaalida oo guuldarro ka soo gaar xagga ganacsiga ayaa ugu dambeyn isdhiibay markii uu Sultan Cali ka aarsaday, waxayna bilaabeen inay baroortaan. daawada waa kuwa ciyaaray ee arrinkaas ma dhicin. arrinka xaqiiqda ayaa waxay ahayd isla markiiba Soomaalidu waxay bilaaween inay niman horseed oo ganacsato ah u kala diraan Afrika iyo Asia, howshooduna ay tahay inay qiimeeyaan fursado ganacsi, taasoona sababtay dabayaaqadii qarnigii 9aad inay gacanta ku dhigeen gobolka Sofala ee ku yaal Mozambique, oona ahaa goob dahabku uu buux dhaafshay. Soomaalida oo markaa rabay inay sadanadooda soo ceshtaan ayaa isla markiiba waxay ku dhaqaaqeen inay dahabka qotaan, kadibna ay u dhoofiyaan Afrika, Asia iyo Yurub. arrinkaasoo hadda daawada dhaqaale badanna Soomaalida soo geliyay,
noqdayna arrin aysan cid kaloo Afrikaana hore ugu bareerin, sababtayna in xitaa gobolka loogu magac daro oo ereyga ay ku hadaaqayeen gobolka la siiyo soo fala dahabka xagga ahayd laga dhigo gobolka xitaa inuu noqdo gobolka soo fal. guushan ayaa dib waxay u soo celisay magacii Soomaalida, laakiin waxa kaloo ay sababtay weelkii Genghis Khan oo awood u ahaa Kublai Khan inuu damaaciyo inuu la wareego dhulka Soomaalida. Marco Polo oo ah nin taariikhiyan ah aadna u socdaali jiray ayaa wuxuu sheegay in dhaqaalihii faraha badnaa ay Soomaalidu samaynayeen iyo magacii ay ku lahaayeen Eeshiyada kale Kublai Khan inuu damaaciyo inuu la wareego dhulka Soomaalida, asagoo isla markaana u soo diray 2 nin oo jaajuus ah inay saxmiyaan. laakiin Soomaalidu aad u digtoon ayaa 2 nin gacanta ku dhigay waxayna u taxabeen xabsi. arrin Kublai Khan madaxiisa gilgishay una garowsaday inuu sameeyay qalad aad u weyn, waxa uuna wacad ku galay in la macaamilad ganacsi mooyee uusan Soomaalida danahooda kale milaxsan. taariikhda Soomaalida ayaa ah taariikh geesinimo, ganacsi iyo fikrad urinba ay ku dheehan tahay, sida markii ay ayagu caalamka kale ay bareen isticmaalka kafeega iyo shakhsigii ugu horreeyey ee Afrikaanaha ee ka taliyay Maldiveska oo ahaa nin Soomaali ah. waxaa kaloona la xaqiijiyey in Soomaalidu ay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee kanan waddanka ku isticmaala qaaradda Afrika. taasina waa taariikhii Soomaalida oo ay reer galbeedku xaqireen, sida ay u xaqireen in Nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sheegay kutubta kala duwan ee caalamka sida diinta Hindida, tan Yahuudda iyo tan Kiristaanka, iyo dhammaan xaqiiqooyinka caddaynayay in Nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ahaa hogaankii ugu fiicnaa ee arrada soo maray daawada. kaas oo fiidiyogaasna ku soo koobay aana hoosna ku dhigay. marka daawade jasaakumullahu khayran.